laba saac oo ay tahay Febraayo 11 waxaa la qisaasay laba nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay waana ku faraxsanahay ninkii saddexaad maadaama saddex nin oo xukumanayeen dilkana maanta lagu wada furiyahay maxaa dib u dhigay ninkii saddexaad waxaa dib u dhigay 10 cishaa dib loo dhigay waana dambiilo ahaa codsi baa jiray xagga maaragtay dadka ah iyo annaka waana 10 waana la hubinayaa 10 cisho in dib loo dhigo go'aankaas maadaama saxiix madaxweynaha uu dhacay yow ka yimi ma adiga go'aanka codsiga dhiibay mise cid kale ayaa gudbisay madaxweynaha gudbisay codsiga waxaa wada dhiibay aniga iyo dad iyaga ka tirsan baa wada dhiibnay in la hubiyo ninkaas waa annaga xaggeena dambiilo ahaa 10 cishaana la baaraya nimankii caasho dilay waa wada aqaanay daris baanu ahayn waanu wada hadalnay xataa waa iscafinay cafis bay iga dalbadeen iyagoo tiirka gaariga saaran gaal shiraha aakhiro baa war jiraa baan ku yiri tiirkaana la geeyay waana la dilay labadiiba adigu goobjoog ma ahayn meesha lagu dilay goobjoog baan ahaa hataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay ninka haray cadaymo iyo awl waxa jidhay in ay isaga iyo walaalkiisu la yiri DNA ga iskaga mid yihiin marka haddii ay dhacdo in ninkaasi uusan la yiraahdo dib loo noqdo oo la yiraahdo laba walaalaabo DNA ga isku mid bay noqon karaan ma ku qanci doontaa maxkamaddu ay dib ugu laabato go'aankaas DNA gu abiyo hooya wada dhalay laakiin maxaa ku jira falkii gabadha ku dhex jira ninkaas oo kufsiga ku dhex jira laftigiisa lacaankiisii baa ku jira shaawadiisii baa ku jirta dhiiggiisii baa ku jira hadduu la falgalay waa la heli doonaa qisaasta annagaa fushanay dowladdu waxay tiri fushadaa la yiri sharciga islaam weeyaane annagaa fushanay dareenkaygu aad iyo aad buu faahan yahay Soomaali weynna waa u mahadinayaa dadkii dembigaas galay caashay Ilyas aadan ka galay waa la toogtay laba ninna waa dambeeya oo 10 cisho ayuu xirnaanaya baaris baa lagu jira